assalaamu calaykum. Marka waagu uu beryo la soo kaakaco, dhammaanteen intaynu ka tiro la egnahay waxaynu hurdada uga toosnaa waajihidda loolan ay mahuraan tahay inaynu gallo, ha yaraado, ha weynaado, ha waalaado, ha miyir qabo. qof kasta oo aadami ah oo nooli waxa uu toosaa si uu u waajaho loolan sugaya oo aan sugaynin oo aan waqti kale u dibdhigan karaynin, ee ay mahuraan tahay iminkadaas uu joogo inuu loolankaas ku kacaa. qofka bini'aadmiga waxa maqaamkiisa iyo karaamadiisa kor u qaadaya ama dhulka la simaya, amaba waxa kala caddaynaya inuu yahay insaan aadami ah ama xayawaan nool oo xoolaha ka mid ahi, waa nooca loolanka uu ku jiro iyo sida uu u waajahayo ama niyadda uu ka leeyahay. qof ayaa loolan joogto ah ugu jira subax walba oo u soo tooso helitaanka caafimaad oo xanuunsanaya. haddii uu loolankaas waajihiddiisa kula eerto dhakhtar iyo wadaad cilmi diineed leh oo uu dabiib bido, waa insaan aadami ah oo si aadamanimo leh u dhaqmaya. haddiise uu dabiibka cudurkaas faalalow iyo fuuxiso ka doonto, dabcan aadaminimadiisa meel ka dhacayay ku tahay. sidaasi la mid ah, qof kasta waxa uu waajahayaa loolan joogto ah oo uu halgamayo. ka adkaanshihiisa oo lagu imtixaamay, niyadda uu kula loolamayo iyo waddada uu u marayo ayaana go'aaminaya inuu ku maamusnaado ama uu ku yasnaado. qof ayaa subax walba u toosa oo waajaha loolan uu kula jiro naftiisa, oo uu doonayo caadooyin xunxun inuu ka gooyo, kuwo wanaagsanna uu u sameeyo. mid ayaa kula jira loolan iska baabi'inta caadooyinka wanaagsan iyo ku raaxaysiga caadooyinka xun inuu ka dhabeeyo. qof ayaa wakhtiga la tartamaya oo ilbiriqsiga saacadda isrogaysa la tartamaya. mid kale ayaa loolan ugu jira ka firdhadka wakhtiga, oo daqiiqad walba waxuu niyaddiisa ku mashquulinaya wixii ay doonaanba ha ahaadeene, oo ciwaanka halgankiisa nololeed ee markaa uu ku jiraaba uu yahay wakhtiga dil ama waxaas wakhtigan ku dilayaa. qof ayuu loolankiisu qoyskooda dhexdooda yahay, oo bahdooda kale ama walaaladiisa ka waaweyn amaba ka yaryar uun isha ku haya, oo loolanka ugu weyne nolosha uu waajahaya ay iyaga yihiin. mid ayaa waalidkii loolankaas kula jira, mid ayaa asxaabtiisa kula jira, mid baa qabiilkiisa kula jira, mid baa u soo toosay inuu qabiil kale uun wax ka sheego, kiisana uu faaniyo oo loolankiisu uu halkaas joogaa. mid ayuu loolankiisu ku salaysan yahay ishaysadka Soomaalida dhexdooda iyo maamuladan dadka sii kala dilaya uun. mid ayuu loolankiisu joogaa dagaalka xaqa iyo baadilka ka dhexeeya. qofba loolankiisu heer ayuu joogaa, heerkaasna labada dhinacba wuu iska taagi karaa. labadaa hadba dhanka uu iska taagana shakhsiyaddiisu way ku suntanmaysaa. loolankaas xaqa iyo baadilka, haddii uu baadilka la safan yahay waa daalim, haddii uu xaqa la safan yahayna waa caddaali. loolankaas qoyska haddii uu islaaxin iyo hagaajin wado waa qof san, haddii uu xamaasad iyo xin wadana waa qof xun. isku soo ururi oo qof kasta oo inaga mid ahi waxa uu waajahaa loolankaasna dhanka uu iska taago ayay shakhsiyaddiisu ku suntan tahay. intan waynu ku wada baraarugsannahay oo maaha waxaynu isbarayno, laakiin laga yaabaa in aanay afkaarahani sidan inoogu urursanayn oo aanay sidan isugu keen habaysnayn. isqiimee, loolanka dhabta ee aad sida maalinlaha u waajahaysaa muxuu yahay? weliba ogow, loolanka nolosha ee aynu gelayno badanka inaguma dooranno, ee marna waaqica ayaa inoo doora, sida in aad sabool tahay, bukaan tahay iyo waxyaabaha la midka ah. marna garaadkeenna ayaa inagu waajibiyaa, oo marka aad tusaale ahaan in badan akhrido loolanka xaqa iyo baadilka, sooyaalka qadhaadh ee gaal iyo islaam ka dhexeeya, si awtomaatig ah, si aadan dareensanayn, goorta aad go'aansatay ayuunbaad is arkaysaa adiga oo loolankaas darafkaaga kaga jira, maadaama aad waxa socdo xogogaal u tahay. loolannadaas jaadkan ah garaadkeenna ayaa inagu waajibiyaa, innaga oo ku jirnana waynu is aragnaa. haddaba adiga oo aan isku dayaynin inaad hadda loolan iska magacaabato, hoosta ka xariiq loolankaad sida joogtada ugu jirto ee aad subaxii u toosto inaad waajahdo, habeenkii inaad ka hoyato la halgankiisa, kadibna si dhab ah oo adiga iyo naftaada ah u qiimee loolankaas dhanka san iyo dhanka xun dhanka aad ka taagan tahay. taas ayaa go'aaminaysa shakhsiyaddaada adduun iyo masiirkaaga aakhiraba. haddiise aadan garanayn waxa aad halganka ugu jirto ee aad waajahayso, aadaminimadaada dib ugu noqo. ha noqon sida xoolaha subaxdiina ooda laga qaado ee soo daaqa, ee caloosha uun soo buuxsada, habeenkiina xirada soo gala, ee calaalnaqsiga iyo raamsiga uun ku foogan. aadaminimadu waa qiyam iyo qaayo, waa ujeed, waa higsi, waa hadaf, waa meelkujeed, waa abbaar, waa halgan, waa loolan. markaad sidaa hooyada uga soo dhacdo ayuu kugu bilaabmayaa loolankaasi, oo aad caalamkan kugu cusub qariibsanaysaa oo aad ooyeysaa.
loolankaad caalamkaas la gasho iyo halganka aad la falgalkiisa u gashaana wuu kula ciraysanayaa waadna la gudgelaysaa. acuudu billaahi min ashaydaani alrajiim alladii khalaqa almowta waalxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala. ilaahay subxaanahu watacaala waa ka abuuray geerida iyo noloshaba. sababtu maxay tahay? si uu idinku imtixaamo ayukum axsanu camala, kiina camal wanaagsan sameeya ama wax wanaagsan qabta. waxaynu meeshan adduunka u joognaa waa jarribaad iyo tijaabo, inaynu u qalanno inaynu beerihii jannaad ee aynu horeba uga nimi ee aabaheen ka soo baxay ku caweyno iyo in kale. waa loolan aynu waajahayno oo ah imtixaan. wax kastaaba ay imtixaan yihiin. hantidu waa imtixaan, faqrigu waa imtixaan, gaajadu waa imtixaan, dheragtuna sidoo kale, xanuunku waa imtixaan, caafimaadkuna sidoo kale. wax kasta oo aad taqaanaaba waa imtixaan. imtixaankaas sidaad u gelayso, sidaad uga jawaabayso, labadiisa darafkaad istaagayso iyo niyadda aad waxaas oo dhanba ku qabanayso weeyaan waxa masiirkaaga adduun iyo kaaga aakhiraba go'aaminaya. liyabluwakum, si uu ilaahay idinku imtixaamo ayuu idin keenay meeshan. loolan joogto ayaad ku jirtaa. haddii aadan ogeynna waa kuu doqonniimo. hal mar ayaa laga yaabaa inaad waajahdo 10 loolan oo kala duwan oo mid kastaaba uu ka kala guud saaran yahay. haddana xalinteedu waa mid adiga kuu taalla. waddada aad u marto ayaana go'aaminaysaa loolankaas wanaag iyo samaanka aad ku kasbato. halkan markaaynu marayno yaynaan ku kadsoomin qodob badanka lagu khaldamo oo ah war innagu natiijada mas-uul kama nihin. in waxaas aynu gacanta ku hayno aynu guul ka gaadhno oo ka midho dhalinnaa hawl innaga inoo taalla maaha. ee innaga waajibkeenna iyo waxa inoo yaalla waa farataagtaagga, iskudayga, dhaqdhaqaaqa iyo niyadda aynu leenahay. ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu inagu leeyahay acuudu billaahi min ashaydaani alrajiim wa an laysa lilinsaani ilaa maa sacaa wa anna sacyahu sawfa yuraa humma yujzaahu aljazaa'a alawfaa. bini'aadmigu, qofka bini'aadmigaahi waxa uu leeyahay waa wixii uu gucleeyey, waa wixii uu isku dayey, waa wixii uu isku hawlay, waa wixii uu faraha u taagtaagay. waxaas uu gucleeyey iyo dadaalkaas uu bixiyey iyo arrinkaas uu hawlgalayna sawfa yuraa, waa la arki doonaa, waa la arki doonaayo waa hubaal. kadibna waxaa looga abaalmarin doonaa sida ugu habboon. suma yujzaahu aljazaa'a alawfaa. adigu waxaad wax ku helayso ee lagu xisaabinayaa adduun iyo aakhiraba waa niyadda aad loolankaas iyo imtixaankaas ku qaabishay, iskudayga aad samaysay, farataagtaagga, dhaqdhaqaaqa, u hawlgalka, inaad isku dayday waxaas in aad wax ka qabato. xataa haddii aad ku fashilanto arrinkaas wax ka qabashadiisa, adigu mar walba ajarkaagii iyo abaalkaagii waad leedahay. waxaana lagugu abaalinayaa iskudayga iyo guclaynta aad hawshaas u guntatay. war hadda ma isla soconnaa? intan markaad fahanto waxaad meesha ka saaraysaa hantaatacyada ay bahashan dhiirigelinta ahi inala soo gashay ee ah guul gaadh, hankaaga ka dhabee, cidna ha u joojin ee hadafkaaga eriyo. guulayso waa hadallo sida guud marka loo eegayo sax ah, laakiin gudaha ka madhan ay sababtu tahay. ilbadhaqsiyada soo socda ma jiro qof ogaan kara sida ay wax noqonayaan. waxa qura ee aynu samayn karnaana waa in aynu wax qorshayno, qorshahaasna aynu hawlgallo raacitaanka tallaabooyinkiisa, aynuna ku dadaallo natiijada in aynu gaadhno. haddii niyaddeennu ay wanaagsanayd oo aynu natiijadiina gaadhno, adduun iyo aakhiraba waynu liibaanaynaa. oo adduunkana ilaahay ayaynu natiijadaas wanaagsan ku mahadinaynaa. aakhirana abaalkii guuclada iyo midhihii natiijada waynu helaynaa. haddii aynaan ka dhabaynna, adduun iyo aakhiraba waynu liibaanaynaa. oo adduunkana iskudaygeennaaas waa laynagu ajar siinayaa. samirkaaynu waayitaankeennaas ka qaadaynana sidoo kale. aakhirana dee waa tii uu nebigeenu inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam, qofka hawl wanaagsan u dhaqaaqa ee niyeysta ee u hawlgala ee ay u suuroobi weydo sidii inuu sameeyey oo kale ayaa ajarkeeda loo siinayaa. waxaanoo dhanba soo koobaya xadiiska nebiga sala allahu calayhi wasalam ee ahaa arrinka iyo axwaasha qofka mu'minka ahi la yaabayay leeyihiin. haddii uu wanaag helo ilaahay ayuu ku mahadinayaa oo ajar baa lagu siinayaa. haddii uu dhib iyo kadeed mutana ilaahay ayuu ugu samrayaa oo waa lagu abaalmarinayaa. yacni mar walba adigu foos ayaad joogtaa. haddii aad ku guulaysato iyo haddii kaleba ee ka bax warkan ah guul gaadh, ka dhabee iyo waxyaabaha la midkaa. war waxaad doonayso ee wanaagsan, niyadda wanaagsanna aad ka leedahay, isku day u hawlgal oo qorshahaad u dejisay raac. niyaddaadana natiijada ha raacin ee hawlgalka raaci. adigu mas-uul kama tihid natiijada ee iskudaygaas ayaad mas-uul ka tahay. kaas ayaana waxa lagugu imtixaamayo. waxaan filayaa qodobkaas inaynu isla fahannay. wasalaamu calaykum.